hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah midowga murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoray fariin dheer oo uu uga jawaabayo faalo uu shalay qoray agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u dhignaa sidan: shaqada sirdoonka laga rabo waxay ku xiran tahay aragtida xukun ee la doonayo. haddii xukun kalitalis ah laga hadlayo awoodda, hantida, tamarta iyo waqtiga, waxaa la gelinayaa amniga kalitaliska. sirdoonku wuxuu ku shaqaynayaa basaasida, baacsiga iyo sumcadilka mucaaradka, cabsi ku haynta kuwa daacadda u ah rajiimka, shirqool iyo qaarijin, shaki kala gelinta bulshada, jahwareerinta iyo jihaynta rayiga dadweynaha si loo jeclaysiiyo rajiimka loogana raarido in la'aantii dalku dumayo. haddiise xukunku dimuqraadi yahay, sirdoonku wuxuu qayb ka yahay ilaalinta iyo difaaca amniga qaranka oo ay ugu horayso amniga muwaadinka, jiritaanka hay-adaha dawladda, dhaqaalaha dalka, amniga tamarta, cuntada, bay'adda, tiknoolajiyadda iyo wixii la mida. xukuumadda ayaa dejisa fulisana qorshaha amniga qaranka, baarlamaanka ayaa leh korjoogtaynta iyo la xisaabtanka hay-adaha amniga. sirdoonkuna wuxuu hoos yimaadaa wasaaradda ku shaqada leh ee madaxweyne ama ra'iisul wasaare midkoodna ma hoos tago. qoraalka taliyihii hore ee nabad sugidda marna xukuumadda iyo baarlamaanka laguma soo hadal qaadin. dowlad goboleed warkeeda daa wuxuu sheegay in qorshaha madaxweynaha lagu hagayay sirdoonka in uu isagu rafiiq ama wehel u ahaa. halbeega guushana welwelka farxadda madaxweynaha ayuu ka dhigay. wuxuu kaloo imtixaan uu keligiisa qaaday natiijo 100% siiyey shaqadiisa oo xitaa gaabis, guuldaro ama tabaryari ma sheegin. qoraalku wuxuu marag fur u yahay xantii ahayd in talada dalka ay labadooda ku koobnayd. waxaa maragma doonto ah in 5 sano ee la soo dhaafay awooddii iyo dadaalkii ugu badnaa ee hay-adda NISA lagu bixiyey dagaalka siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo ku duulka dowlad goboleedyada ka aragtida duwan rajiimka farmaajo, taasoo fursad weyn siisay in argagixisada al-shabaab ay canshuur iyo baad maalin cad shacabka ka gurtaan. waxay canshuur ka qaadaan meheradaha ganacsiga, dekedda, garoonka diyaaradaha, suuqa bakaaraha, dhulka la kala iibsado iyo NGO-yada. shacabkii waxay nafbideen in kuwii qarxinayay garsoor u doontaan. qabiiladii ayay u sameeyeen waxay ugu yeereen naqiib, kaasoo qabiilka wakiil uga ah al-shabaab. maadaama ay si dadban muqdisho u xukumaan, al-shabaab waxay qaraxyadii ku soo koobeen kuwa fariin ku kooban oo ah weli waa jirnaa, khatarna waan ku nahay cidda damacda in ay canshuurta ama baadda bixin weyso. maadaama uu taliyihii hore caddeeyey in qorshaha NISA lagu hagayey uu madaxweyne hore farmaajo lahaa, waxaa cad inuu isagu lahaa amarkii iyo qorshihii. 1. Itoobiya loogu dhiibay qalbi dhagax. 2. weerarkii ay NISA ku qaaday xarunta xisbiga wadajir. 3. weeraradii lagu qaaday hoteelka ay labada madaxweyne iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka deganaayeen. 4. weerarkii Mukhtaar Roobo lagu soo afduubay. 5. shacabkii iyo madax kale oo iyagoo dibadbaxaya la weeraray. 6. awooddii ciidan ee gudoomiyihii baarlamaanka xilka looga tuuray, kii kalena loogu dhiibay. 7. wiilashii Soomaaliyeed ee lagu soo xirigeliyey in qadar loo qaadayo kadibna dagaalka Tigreega lagu guray. 8. dilkii Ikraan Tahliil iyo is-hortaagii cadaalad u raadinteeda. 9. iskudaygii ra'iisul wasaare Rooble lagu afganbi rabay. 10. iskudaygii madaxweynaha Jubbaland lagu soo qafaalan rabay iyadoo kumaandoos dowlad kale la adeegsanayo. kalsooni darrida ay shacabka NISA ka qabaan waxay keentay in ay labada talis ee al-shabaab iyo NISA la kala garan waayo. halhayskii kalamaan oo ka turjumaya guuxa jirana uu ahaa shaki ma laha inay laba shabaab wada shaqeeyaane. maxaad ku falaysaa gudoomiye degmo oo hadaf muuqda al-shabaab u ah adigoo heli kara in aad ku shaqayso nabad sugid dharcad ah oo toos ugu xiran taliye cid walba ka sareeya, haystana awood iyo hanti aan la xisaabinaynin. falsafadda waxaa ka mid ah solipsism oo ah waxa adiga maskaxdaada ku jira ayaa xaqiiqo ah, cid kale waxba kaama quseeyaan. waxay la mid tahay in uu ruux ku doodo sanadkaasi ayaa ah kii Soomaaliya ugu fiicnaa, maxaa yeelay asaga lee og sababta. mar haddii wixii maskaxdaada ku jira oo keli ah sax yihiin, waxaad ku dhacdaa in aad dadka kale caqligooda ku xadgudubto oo aad tiraahdo dal aan 30 sano ka hor tababari jirnay, 30kii aan burbursanayn isagu dowlad ahaa ayaa weli tababar noo soo doonanaya. waxaad kaloo odhan kartaa Soomaaliya waxay leedahay sirdoonka ugu fiican Afrika oo ay wiil iyo hooyadiisa u wada shaqeeyaan,
laakiin caasimadda ugu ammaanka xun ayaa xarun u ah. waxaad kaloo dhihi kartaa Soomaaliya waxay lahayd madaxweyne wadani ah, ciidanka Afrika ugu xooga badan iyo sirdoonka ugu khatarsan adduunka, haddana dalkii burbur way ka celin waayeen. waxay la mid tahay adoo yiri ardayga ugu fiican waxbarashada iskuulka ayaan ahay, laakiin imtixaankii waan ku dhacay sababtoo ah macallimiinta ayaa inacibno. Soomaaliyana shirqool shisheeye ayaa dumiyey. kulay qoraalku kama marna dacaayad olole ee farmaajo iyo halay xasuusto. mar haddii adigoo dadka loogu hadalhaynta badan yahay ah, lehna saameyn weyn, mar qura burjigaagu jabo, aadna weyso cid warkaada haysa, waxaa kugu dhacaya cudur la yidhaahdo iswaayid. waxaadna ku qasban tahay inaad isa soo muujiso oo aad hawshaadii hore ku laabato.